safarkan uu madaxweyne Farmaajo uga baxay Muqdisho wuxuu ku wajahnaa magaalada Addis Ababa oo Abiy ugu diyaariyay hab maamuuskii ugu sareeyay hase ahaatee hadalhaynta baraha bulshada iyo xogta mucaaradka ay ka heleen safarka madaxweynaha ayaa filla Soomaaliya ku cadaadisay in safarka ay u wiciyaan Kinshasa oo uu martiqaad madaxweynuhu ka helay isbuucyo ka hor. haddaba maxaa sababay in Farmaajo Addis Ababa ka baaqdo oo uu Kinshasa in Farmaajo uu doorbiday in madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo uu u arkay xubin firfircoon isla markaasna ka garami kara arrimaha cakiran ee ku hareeraysan muddo kordhintiisa iyo sidii dawladda Congo ay buddig ugu noqon lahayd fududeynta wada hadal dhexmara dawladda Soomaaliya iyo saamileyda siyaasadda ee dalka. markaan si diyaaradii ka duushay Muqdisho ee uu saarnaa madaxweynihii qabka weynaa ee xalka dalka jeclaa in laga raadiyo sida uu isagu sheegay dadka dhexdooda waxay dib u soo caga dhiganaysaa garoonka Aadan Cadde iyadoo uu saaran yahay madaxweyne xalka ka raadiyay shisheeyihii uu sheegi jiray in laga maarmay. madaxtooyada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa shaacisay ka hor filla Soomaaliya in Farmaajo uu dalbaday in laga qayb qaato fududeynta ku saabsan sidii xal siyaasadeed oo uu raadin ugu jiray loola fududeyn lahaa isla markaasna loo dardargelin lahaa wada hadal ay yeeshaan dawladda federaalka iyo saamileyda siyaasadda. waxaa lagu fashilmay wada hadallo Soomaalida dhexdooda ah in lagu gaaro heshiis wada ogol ah xerada Afisyooni. taasina waxay keentay natiijada caawa inkasta oo madaxweynayaashii hore ay dhowr jeer kula taliyeen Farmaajo inuusan khilaafka Soomaalida iyo xal u helideeduba ka raadin dalal shisheeye. Soomaaliya qabkeedii ma jabay mise waa u joogaa qaybta hoose ee commentiga aan ku sheekaysan.